saaxib xalatoo naag baan arkay mayba jirinba waa naag baxalka ka qurux badan tahay ku tusi allaha waa runtaadii xalatoo timahan bay tustay war dhigayso ilma yar baa tahay naag baxalka ka qurux badan tahay ku tusi naagta timaha dheer timaheeday ku tusi naagta maaragtay indhaha waa weyn intaana wejigeedaabay ku tusi naagta taayarada waa weyn taayaradeedaabay kor u yar qaadanaysaa shiidka ay yaraysideed dahaye taayarada maxadan oo taayarada ma garanaysid may war waa lugaha weeyaan inaa lilah waa maxay soo dhahaygi ma iminka ogaadaba inaan taayarada inaan lagu yihiinba bal waxaan ku wajinayaa adigu shay ugu horeysa naag ka aragtida maxadan war anu dookhaygaan kuu sheegaya gabadha lugaha waa weyn le ee kubka buuxa iyaa ka helaa laakiin anigu kugu maraxsanidee bal ninkaa wajinaaye ee wuxuu ku hadlay maanta raggiinan dumarka ka sheekanaya ila taga sheekada de anigu isku sheeko ma nihini anu raggeygii baan sugayaa sheekada dee malaa waxaa nacasana intan kaa qasmay barqaankii waxa wana waa sheekadeeni kaa weyahay dhegeyso gabadhu markay dariiqsa kaaga soo baxay kulamay halin kulamay fadhiisan meel dabeecaddeeda ma garanaysa kubkeega unbaa saa u aragti boqolkiiba konton inay khatar tahay gabadha garo indhahaagu macallin ha noqdaan warniyow ilaahay baa ku keene war meesha rag baa igu wareeriyey rag sheeko dumareed ilaahaaga ma taqaana ilaahay baa ii kaa keene kale madaxay xanuunay saaxiib orta jaadka war waa kan jaadku cun jaad u buuxaay miyow waa maxay jaadkan de waa jaad cun deemka waa iloobe kaaya roonfoorka nooga dhigay kaaga maydun oo de kaaya ma iloobina roonfoor ma nooga dhigi kaaya cun shadaanka iska naari maka waa maxay yaqdad raggan iga soo gaar ilaahay baa ii kaa keene hay wariwar yaa dhegeyso waxa waa wax laga sheekaysan karo soomaalida oo dhan baa ka sheekaysata dumar nin kasta wuxuu jecel uu ka sheekaysta war sida dumarkaad u sheekeynaysiina u sheekeeya sida dumarka anaga imka sheekadii ragga waaweyn ee mas-uuliyiintaan u sheekaysanayna mas-uuliyiinta fadhina saa dumarka ugu sheekayna majlis miyaa fadhinaa dee anaga sheekaysanayna iswatada inaga isfahmeeye anagu isma fahmi doone waa kaa barjinaya war shirkadii berigan ka soo dhaadhacay chef jiid baa loo nuumay ma garanaysaa may 10 sanadood baan u shaqeynay iyaga berigi hore inta markaa u shaqeynay 10 sanadood isaguna 2 sanadood buu shaqeeya waa ay qaateen kabeen oo maad garanaysaa aniga ma garanayo dee waxa la yiri maad garanaysaan soo maqlay waa mid waxa baa is garnay lugiisa 2 sanadood uu dhex jooga muxuu garanayaa war sanadood buu baa ka shaqeeyay war lugaha iyo madaxa waa isku mid baa la yiri mijiis iyo lugiisa waa isku mid waryahay annaga lidhaanayba dumar ka sheekaysanay ragaa aqoon u lahayn oo gaadhay oo noloshoodii keen iyaa halkan ku gogoynaysi war orda nagala taga ma adiga lugaha dumar war nagala taga lugaha dumarkaad ka sheekanaysaa majliski noola imanaysaa waxaad habeenkii soo aragtay war nagala tag war ninkii maad garanaysaa war naga war waa khaysa naga dayo ninkii maad garanaysaa war waxa leeyahay inuu ku hadlay adag ima maqlay waxa ku leeyahay 10 sanadood baan ka shaqeynaya meesha arag ya rasaq ya fatax war wali waxa ku dheer maad garanaysaa diplom xabad ma sito السلام عليكم عليكم السلام war maanta waa maxay buuqa intan leegeed diin majliskii hore waxa lagu soo guuro waa qaylada intan leegeed war ma adoo majliskeeni ku jidida welina controlesa majliska aad sheegaysid lacag baan ka bixiyaa cotisation la yiraahdo war shalay baad noogu timid meesha weligeen baan bixinayna immikaan ku soo biray immikana waa ina la dhageysadii haddaba ku sheegay anagu weligeen baan bixinaynay waan ku nafisnaa majliskani adan min aniga qaadin daraaxada horta doodan foosha xun la iska daayo waxaad ku qaylaysiin bal ii sheega maxaad la qaylaysiin shirkadda Shiinaha ee xagga hore shirkadda Shiinaha shirkadda Shiinaha deedii ha 10 sanadood baan u shaqeynay 10 sanadood way fahmaysaa 10 sanadood waa garasa waxay tahay ma weligood marna ima dilacsin waxayna ma 10 sanadood markaa ka socdana ma jidid bay keeneen 2 sanadood buu shaqeeyay imika dilacsin 2 sanadood kaliya buu shaqeeyay anaguna 10 sanadood kawar ilaahay baa u qor ilaahay u qor 10 sanadood baan ku leeyahay isagoo maanta administration waxba ka garneen waraaqad qorin magaciisa qorin iyo maantana chef laga dhigay waa ninkan saaxiibkii rag soo aflaxay oo soo daalay oo meel sare maanta noloshoodii heer sare gaarsiiyey unbay saa u googooyaano waa hilbiyaal baa unay raggan sariibada unbay ragga ku xantaa war shirkadda Shiinaha aad sheegaysiin ma taqaaniin horta ha sariir kule 10 sanadood baan ka shaqeynaynayo ninkan aad sheegaysiin magaciisa ma garanaysiin maya war ma garanayo magaciisa maxay baray magac maad aragteen ma haddaba idageysta shirkaddan Shiinaha aad sheegaysiin ninka chefka looga dhigay ee Xasan geedi faarax la yiraahdo waa aniga
ninaana garanayn wejigiisana aan garanayn magaciisana aan garanayn oo halkan ila fadhiya iyaa googoynaysa war ku cod ninkan maanta waa nin fiicanay madaxa ka dukada qaldanay warna mimi ka yaxni ka saraagine naga raala nin kale maanta saa nima uma afudhigeen majliskan ragga aan googoynaysiin ka daaya waxaan iga leenahay ayaan buu misaa nigu dili waxaan gurgurahay ninka naga daa waan qaldanay imika waa nin fiican ma arkaysaa fiicnidiisa baa halkaa geysay félicitations chef félicitations barasho horteed waxba ha iga sheegina qof eedaan garanayn oo wejigiisa eedaan aragna in wax laga sheego ma qurux badna